ninka raba inuu igu cabsiiyo ninka raba inuu igu dilo ninka raba inuu igu xiro waxaan leeyahay ha soo daahin anigu mar walba waa dhimanaya walikulli ummatin ajal xalay nin baa isoo wacay dhib weyn buu ii geystay wuxuu igu yidhi waxaa tahay argagixiso waxaad leedahay indhaha argagixisada waxaan kuu ballan qaadayaa buu yidhi inaan dib lagu arag wallaahi adigaan lagu arkaynin shaatiga dowladnimada ay aad ummadda ugu cagajuglaynayso kitaabka ilaahay ku difaac ummadda daashay ee mobeelada lagu dilaya ee baada laga qaadaya ee ilmahooda asaayida loo saarayo ee caruurtooda agoomooweyso shaarkaa kuwaa ku difaac ilaahay baa janno kuugu siinaye waxaan rabaa inaan ummadda u sheego anigu meelaan ka naqdo ma joogi waxaan baraha bulshada u galay ummadda muslimka inay kitaabka ilaahay qaataan ilaahay baana na amray nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam zamanka markuu ka hadlaye alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya xilliga dilku uu badan yahay ee fitanku uu badan yahay ruuxa cibaadada laazima ay xaqa u dulqaata ay xaqa ku sabra nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wuxuu la mid yahay ruux aniga iisoo hijrooday salaadii maqrib kadib xalay wiil yaroo anigu aan dhalay oo madrasada sheekh cali suufi dhigta baa wuxuu ugu yidhi xalay cishihii markaan ka imaanay aabbow haddii lagu xiro ay dowladdu ku soo dayi weyso sida roobow iyo xasan daahir aways yaa qur-aankay baraya waxa weeyaan maanta dulmiga ka jira magaalada muqdisho hadduu naqday ruuxii ku taliya ummadda allah abuuray allihii abuurtaana wuxuu u soo dejiyey dastuur iyo kitaab munazal ah oo dhammaystiran ee allah iyo addoommadiisa ha laga dhex baxo ruuxii ku taliya hadduu dembile yahay dembiga aniga gelaya saxaafadda soomaaliya iyo youtuberyada kilibyadeeda qaatane kuwa khayrka u qaadanaya iyo kuwa u qaadanaya aniga in lay dhibaateeyana waan garanaya cumara wuxuu yidhi lastu bilkhibbi wala lkhibbu yakhdacunii wuxuu yidhi dhagarlownii ma dhagraya dadka maanta kilibyadeeda meelaha wareejinaya ee iisoo qaraya dhiiqaa lugaha la gashay hooyaday aabbahayo mar hore dhintay igu salaam tacsii horumaraysa anigu waan dhimanayaa laakiin waxaan dhimanayaa anigoo mid weyn la kulmaya kana rajaynaya cafi iyo janno iyo radihiisa laakiin adigu yaad la kulmaysaa haddaad dhimato maxaana ilaahay agtiisa kuu yaala intaa iska fiiri wallaahi waxaan hubaa malaha ilaahay agtiisa ii yaalo inuu ilaahay agtiisa wax badan ii yaalaan waxaan aaminsanahay jidkaan haddaan ilaahay kula kulmo inuu ilaahay raalli iga naqanayo maalin iyo habeenne waxaan ku qaylinaynaa in ummaddu kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam ay qaataan ninka raba inuu igu cabsiiyo ninka raba inuu igu dilo ninka raba inuu igu xiro waxaan leeyahay ha soo daahin anigu mar walba waa dhimanaya walikulli ummatin ajal ilaahay wuxuu leeyahay ummad walba waxaan u samaynay ajal goobta iyo xilliga iyo sababta ilaahay baa garanaya maanta haddii reerkayga ka qarsoomto ay la yidhaahdo dablay hubaysan oo heybtooda la garanaynin baa sheekh shantaay dilay ilaahay baa garanaya gacantay dishay iyo cidda soo dirtay iyo cidda dhiirogelisay ilaahay baa